saraakiisha tababaranaysay iyo shahaado siinta abaalmarinta kuwii sida firfircoon shirkii guusha lahaa uga soo shaqeeyey anigoo mahadda uu ilaahay iska leeyahay shirkaasoo si inoogu dhammaaday si guula ay ka soo baxeen waxyaaba maxay ahayd aad iyo aad loogu baahnaa si nabadgelya ku dhammaaday oo aad moodo in khayr beelayaashu inay ugu talagaleen inay carqaladeeyaan oo anigoo u tacsiinaya dhacdadii ka dhacday warasaabkii gobernatorihii guddoomiyihii gobolka Nugaal ay la haleeleen waxaan moodayaa inay ugu talagaleen kole shirkaas inay ku carqaladeeyaan laakiin kuwa daafacay ilaahay amarkii iyo kuwa halka fadhiyo daafacay iyo kuwa ka maqanba aad baan ugu mahadcelinayaa inta haddaan ka gudbo waxaan horeysiinayaa waxaynu ka ducaysanaynaa xanuunkan waa annagan hadda maanta waa anaga sidii dhakhaatiirtaan ku arki jiray waxaan afka la duubanayo ma wada dhakhaatiir baynu noqona waa inaga afka duubanayno inaynu waa dagaal kale qudhiisu oo weliba aan maxay ahayd daafac lahayn oo aan aragti lahayn ciidamada iyo saraakiisha iyo saxaafadda iyo intay dhegaysanaysaba waxaan kula dardaarmayaa in aynu iska ilaalino ilaah baa ina ilaalin kara inaynu raacno wacyigelinta iyo talooyinka dhakhaatiirta iyo guddiyaasha ku shaqo leh waad aragteen waxaan meelahaasaan dhegaystaa nimanka la yidhaaho Sweden iyo dalalka dibadda Sweden iyo Talyaaniga iyo dadyow noocaas ayaan raacin talooyinkii waxa ay kala kulmeen waa dhegaystaa baan u maranaya waa iyaga ugu Spain iyo Maraykanka iyo waxa Shiinaha waa dawladda xilxiran waa kantarooleen laakiin kuwan kale oo iska xoogayo dimuqraadiyiin iyo ikhtiyaar baan leenahay annaga waxyaabo ay ku shaqeeyaan waxay la kulmeen waad garan kartaan ka isaga ah waa dadaalaysan dawladdu waa dadaasho markii oo tallaabooyin baa la qaaday meel walba waa la xidhay karantiin baa la sameeyey madaxweynaha dabcan ka hadlay oo sida qorshuhu yahay inuu ka hadlo bishiiba isniinta ugu horeysa shalayna ka hadlay oo si fiican ugu warbixiyey hay-adaha ku shaqada lehna iyo daily maalinle bay uga warbixiyaan uga wacyigeliyaan golis waa u mahadcelinayaa iyo hay-adahaas ku shaqada leho wacyigelinta teleefanada iyo ay ku sameeyeen intaa markaan gudbo haddaan u soo noqdo tababarka kan maanta aynu soo xidhayno mid loo baahnaaba runtii jananka iyo saraakiisha iyo wasaaradda amniga iyo dawladda hindistay aad iyo aad baan maxay tahay ay u tahay wax loo baahnaa waxaa kale loo baahnaa oo aan runtii aan halka kan wuxuu soo bandhigay waa arrin aad iyo aad aynu ugu baahnayn weeye waxaan u mahadcelinayaa oo aan hadda aan la ii sheegin waxaan soo xidhnay qardho xorgoble waxaan ugu soo xidhnay ciidamo lagu tababarayay waxa ay ahaayeen tiradoodu 600 iyo wax la mid ah waxaa ka soo xafaaroobay 300 iyo wax ku dhow wixii kale waa marka waxaan aad ugu faraxsanahay la iima sheegin wax daatay oo maxay tahay la qabsan waayo oo dhacay marka waa rag wada maxay berfrin ka hadhay bay u eg yihiin waxaan ka codsanaynaa aan ku boorinaynaa wixii ay soo barteen waa waxyaabaha kuwa tababarka ay qaadanayay halkaa laga soo bandhigay waa waxyaabaha baahida ugu weyn aynu qabno weeye waxyaabaha dadkeena iyo Soomaaliya guud ahaanba gaar ahaan
innaga boosaaso iyo aynu ku maqallo in laga hortago waxa aad barateen in looga faa'iideeyo jaranka iyo saraakiishana waxaan u sheegayaa maadaama aan u baahannahay dagaalkiina aanu dhammaan aynu dhexda kaga jiro si aynu uga faraxalanno waa in saraakiishtan ama ardayda inaguma filayntani intan in ka badan waa inaynu wadnaa oo meel walba aynu iskaga filaannaa oo magaalo walba iyo ay inoo joogaan dad aqoontaa lihi oo la dagaalami karaa nimankaas imaan lawayaasha ah aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa shirkii tababarkeenniina waxaan ku dhawaaqayaa inuu inoo xidhan yahay oo inoo soo xidhmay hadda wixii laga bilaabana ay shaqadooda ardaydaasi ay noqon doonaan taytalkoodii saraakiil iyo dabley iyo saraakiil xigeen iyo waxay ahaayeen oo ku shaqaynaya hawsha ayada loo tababaray ay ku dhaqaaqi doonaan maanta laga bilaabo aad iyo aad baad u mahadsantiin.